waan in salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena bidaayaad ayaan kaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog xaqiiqooyin u gaar ah filimka caanka ah Kaaqee kaasoo kamid ah aflaamta actionka ah ee soo baxay sanadii 2004 balse intaan u gudagelin muuqaalkii waxaan ka codsanaynaa janaalku soo biirto muuqaalka dadka shalaag inoo sar sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal filimkani Kaaqee macnahan yani ereygani Kaaqee waxa weeyaan uniformkaas yani loola jeedo uniformka booliska sida filimka aan baad ka dheexan karto markaan eegno filimkan waxa hogaameelkooda ah Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgn, Aishwarya Rai, Tushar Kapoor, Kalmish Swanda min lagu magacaabo sidoo kale dadyo kale ka soo muuqda waxa kamid ah Barakesh Raj ee Soomaalidu ay dhahan seerabta dadyo kale caanka ay ka soo muuqda waxa kamid ah Yusuf Hussain, Atul Kulkarni, Tanuja oo ah Kajal hooyadad iyo sidoo kale Jaya Baranda markaan eegno filimkan waxa agaasimo ka ah Ahmed director ka ninka lagu magacaabo Raj Kumar Santoji markaan eegno filimkan waxa la saaray ama uu soo baxay 23 January maanta oo kale sanadii 2004 waxa la saaray tiyaatar gaaray 525 tiyaatar lacag lagu qaraj gareeyay waxa lagu sheegaa 25 karoor waxa uu keenay 26 karoor natiijo ahaan waxa uu noqday film average ah ama guul gaaray laakiin guulkiisu waa guul yani aad u hooseysa marka la eego darajada uu gaaray saaxiibayaal filimkani waa filmkii 11aad ee lacag ugu badnaa soo xariisay sanadii 2004 markaan eegno sheekadiisana waxa la siiyay ama shabakada caanka ee IMDb waxa loogu codeeyay 7.4 oo sheekadiisu waxa weeyaan waa iska high oo ay sareysaa xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay ilaa 10 xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa inkastoo laga qoray 50 iyo dhowr xaqiiqo saaxiibayaal laakiin 10 xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal xaqiiqada ugu horeyso aktarada kale ah Ajay Devgn sidoo kale Akshay Kumar ayaa muddo 10 sano kadib filimkan iska soo muuqda ama isla shaqeeyay ka hor waxay iskala soo muuqdeen filimka caanka ah Suha kaas oo la daawaday sanadii 1994 xaqiiqada labaad waxa leeyahay filimkan waxa lagu qaatay 4 abaalmarin kuwaas oo kala ah best director oo agaasimiga ugu fiicnaa best actor oo actorkii ugu fiicnaa oo la siiyay Amitabh Bachchan best support actor ator caawi ugu wanaagsan Akshay Kumar la siiyay best yani villain ama negative role ka oo la siiyay Ajay Devgn afartaas abaalmarin ayaa lagu baxshay saaxiibayaal xaqiiqada saddexaad waxa leeyahay ninka lagu magacaabo seerabta ama Barakesh Rai ay magaciisu saxda u yahay Soomaalidu seerabta ay u yaqaan waxa leeyahay filimkan waa filimkiisa labaad ee Bollywood oo ka soo muuqday kor filimkan wuxuu ka soo muuqday filim lagu magacaabo Shakti the Power ka oo la daawaday sanadii 2002 xaqiiqada afraad Ajay Devgn iyo sadohdiisa waa Kajal hooyadeed ayaana filimkan iskala soo muuqday saaxiibayaal inkastoo yani labadooda doorka isku arkayaan ama iska soo hormuuqanayaan ay يعني wax 5 daqiiqo yar iska soo hormuuqdeen waan filimka dhamaadkiisa inta maxkamadda la saarayo ay Ajay iyo sadohdiisa yani si toos ah isku arkayaan marka la eego xaqiiqada shanaad ee filimkan laga diiwaangeliyo waxa leeyahay Ajay kadib filimkiisii Fijeebad ama Ajay farqiga filimkan waa filimkiisa labaad ee inta ugu badan oo kiyaalo oo kaga soo muuqdo shaashada horteeda sida shaaca laga qaaday saaxiib xaqiiqada lixaad jilaaga lagu magacaabo Amitabh Bachchan ama Cali Dheer ayaa muddo kadib asigoo wax gar lehna ama gar la'aan ka soo muuqdo filimkan weeyaan ka hor filimkan inta ugu badan aflaamta ku soo muuqanaya asigoo gar leh ayuu kaga soo muuqdo laakiin doorka filimkan maadaama uu boolis ku jiray director filimkan Raj Kumar Santoji wuxuu ka codsaday inuu garka iska jaro yani uu shaarib oo kaliya ku jiro oo uu ku jilay saaxiibayaal xaqiiqada lixaad ee gabadha lagu magacaabo Aishwarya Rai waxa leeyahay filimkani waa filimkeedii ugu horeeyay ee yani doorka negative role ka ee kaga soo muuqdo film ama ka balaadirnimo xaqiiqada sideedaad waxa leeyahay Aishwarya Rai sidoo kale Ajay Devgn filimkan waa filimkoodii saddexaad ee iskala soo muuqdaan ka hor filimkan waxa iskala soo muuqdeen aflaamta kale ah Hamdilke Jubke Sanam iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Hamkisi Komnahi oo asagana 2004 xaqiiqada sagaalaad ee filimkan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan Akshay Kumar iyo sidoo kale Amitabh Bachchan filimkan waa filimkii saddexaad ee iskala soo muuqdaan ka hor filimkan waxa iskala soo muuqdaan filimka lagu magacaabo Ikrishta iyo sidoo kale filimkii Anqayn ee camoolnimada uu ku jilay ninka Akshay Kumar ahaa xaqiiqada ugu dambeysay filimkan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan saaxiibayaal Akshay Kumar iyo sidoo kale Aishwarya Rai filimkan waa filimkooda ugu horeeyay iskala soo muuqdaan kadib filimkan waxa iskala soo muuqdeen filimka lagu magacaabo Reply saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa xogtii xaqiiqooyinka aan kala wadaagayo filimka actionka ah aad kana looga cabsanayo markii la daawanayo Kaaqee fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like noo saar sii share garow la wadaaga asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena